waxaa shalay gelinkii dambe magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan cilmi baarista iyo caqabadaha ka jira kulankaas oo ay soo qaban qaabisay waxda wacyi platform oo qayb ka ahaa madal jimco walba ay qabato wacyi platform taasoo lagu magacaabo madasha jimcaha waxaana kulanka ka soo qayb galay ururka Somali Public Agenda oo marti ku ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo dhalinyaro qaar ka mid ah bariyaasha wax ka dhiga jaamacadaha magaalada waxgarad iyo marti sharaf kale kulanka ayaa waxa lagu falaqeynayay muhiimadda ay u leedahay cilmi baarista bulshada Soomaaliyeed dhan walba oo nolosha ka mid ah iyo xal u helidda dhibaatooyinka la xiriira dhismaha dawladnimo oo aas adag u leh ugu horreyn waxa dood furay gudoomiyaha wacyi platform Xasan Xaaji iyo mas'uuliyiin kale yaa la wadaaganaysaa oo kale biyada iyo qoraalada marka madalooga mid la mid ah يكمل بمركان فرصة جار إنها إني مذلي يعني كل قيب قلنا ضد مرتي قيمة له ما يبقى مرتين تيم Somali Public Agenda وسنكوري أجاسم محد واسوجة يو محمد شريف وتيم ترسم طبعا لانكي حق تسمع كان بيلنكو جذبة مثلا جي كما يبقى أيوان شيء يا مس نكو هذا الضمنة baahi lanqaba dhinaca researchiga ama cilmi baarista sidoo ogsoonna deegaankan xiliyadan dambe may eedan ka badaay dhalinyartii ama dadkii walha baraday dal idbid meel fadaan walka baradaan dadkii aqoon-yahanada hayaan deegaanka eedan badanin tiro ma sha Allah ee roogta laakiin still major gap oo dhinaca cilmi baarista ah institution nagadoy jaamacad ama walkal ma kala wadada ama dhalinyaro kale oo qaab urur suubiyan ama individual still majaraan meel oo hata rasmi ah la qorada oo cilmi baaris suubiyaas una ku faa'iideysadaan fursadda teamkan saaxiibadan in la roogan Somali Public Agenda oo dhinacyadaas eedan ku dhuunduleela yamayba go'aansanay inuu geeyo ku hadalna researchiga iyo ahmiyadiis iyo caqabado oo ka reer Southwest ahaan oo horteegan maadaama bulsho badan oo halbarati arlaada roogtay inuu wal qorno ama research oo suubina marka topic aan cilmiyeysan oo justify gareyn karo oo data iyo evidence iyo analysis macnaha ku qatabo uusan isagoo marfash fadhiyo qiilay wuxuu ku fikiray inuusan ummadii masiirkeedii maaragtay ku jahwareerin ku maaragtay ku haligin intaasi kadib waxaa doodda si weyn u soo dhaweeyay su'aalo dhowrana ka jeediyay qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay Somali Public Agenda oo soo dhaweynaa ma sha Allah soo dhawaada deegaanka soo dhawaada ka Cabdullaahi aan horta waxaan maqlay laba maalin ka hor aan maqlay Somali Public Agenda hormaan aqoon marka waxa markii infareyti ana aragmay haddii Somali Public Agenda aragniyo hasaaray in bakto schoolna Soomaaliya economically qadlaayay markuu COVID ka dilaacay research akhri oo baayiseenadan marka yani caqabado jiraan iyo qayb ku yihiin yani dadka oo fanka siiyaan hay'adaha naftarshooda oo researchiga city fanka ka bixiyaan ma aaminsana intii qayb ku ata doodda jimcaha oo ay qabato waxda wacyi platform ayaa si weyn waxa u soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya Maxamed Deeqsheer Jito Nabad TV Baydhabo